ma isku aragtay isbeddel inuu ku yimaado maqaarka jirkaaga iyo wejigaagaba, gaar ahaan dhabanada, foolka iyo inaha hoostoodaba? Muuqaalkan ayaa kugu sharxaya qaabka ugu fudud ee aad iskaga baabi'i karto haaraha ku samaysma wejiga. Sidoo kale muuqaalkan waxaan kugu tusi doonaa dawooyinka loo isticmaalo in lagu baabi'iyo haaraha. Balse intuusan muuqaalka bilaabanin, waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan like noo saarto, siina share gareyso si uu u gaaro dad badan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal. Si aad muuqaalka hordhicisa kasoo aragtayba, muuqaalkan waxaan rabaa inaan ku sharxo haaraha ama isbedelada ku yimaado maqaarka. Marka hore aan ku hormaro hordhac yar oo ku saabsan haaruhu. Waa maxay haaruhu? Haaruhu waa goobaabin ka midab duwan maqaarka qaybihiisa kale, waxayna inta badan kasoo baxdaa wejiga, gaar ahaan dhabanada. Sidoo kale haaruhu waxay kasoo bixi karaan garabka, dhabarka iyo sidoo kale qaybaha kale ee jirka. Waxaan filayaa inaan isla fahanay waxa uu yahay haaruhu. Si aan muuqaalka hordhicisa kusoo sheegaybo, haaruhu waa qayb ka mid ah jirka oo midabkeedu isbedelay. Midabkaasi inta badan wuxuu noqdaa madow. Waxaa jiray muuqaal hore oo aan kaga hadlayay waxa uu yahay haaraha, waxyaabaha keeno iyo sida looga hortagabo. Muuqaalkan waxaan awoodda ku saari doonaa qaabka loo daweeyo haaraha. Sababtoo ah muuqaalkii hore ayaa su'aalo badan, dadyo badan su'aalo iga soo weydiiyay. Marka muuqaalkan waxaan isku dayi doonaa inaan su'aalahaasi ka jawaabo oo aan haaraha dawooyinkeeda si faahfaahsan ugu sharxo. Waxaan u gudbi doonaa qaybta xigta oo ah sidee loo daaweeyaa haaraha. Sida loo daweeyo haaraha mar walba waxay ku xiran tahay waxyaabaha keena. Oo tusaale ahaan haddii ay keentay qoraxda, waa inuu qofka ka fogaadaa qoraxda. Inta badan haaraha waxaa keena cadceedda ama qoraxda, gaar ahaan qoraxda ka dambeysa xilliga duhurka. Marka haddii ay qoraxda ku badato maqaarkaaga, waxay sababi kartaa ama waxay dhaawac gaarsiinaysaa unugyada ku jiro maqaarkaaga. Unugyadaasi markay dhaawac soo gaaraan, midabkoodu isbedelayaa. Unugyadaasi midabkooda wuxuu noqon karaa madow ama casaan. Haddaba si aad u daweysid xaaladan oo kale, waa inaad isticmaashid kareemyada looga hortago qoraxda oo loo yaqaano sun creams. Si aad shaashad ugu jeedidbo, kareemyadani waxaa loo yaqaanaa sun creams. Muhiim ma aha nooca shirkad ay soo saartay, balse waxaa muhiim ah inuu kareemka yahay mid ka hortaga cadceedda ama mid ka hortaga qoraxda. Kareemkan waxaa loogu talagalay qofka intuusan u bixin qoraxda inuu marsado. Sidoo kale kareemyada waxaad isticmaali kartaa markaad wax karinaysid ama markaad joogtid meel aad u kulul. Sidoo kale qaabka labaad ee lagu daweey karo wax loo yaqaano haaraha waa inaad isticmaashid boomate ama dawooyin. Waxaa jiro dawooyin badan oo laga hortago ama lagu daweeyo haaraha. Balse dawada ugu caansan ee la isticmaalo waxaa loo yaqaanaa dawadan loo yaqaano hydroquinone. Dawadan muuqaalkii hore waan ku sharxay. Waxaa loo yaqaano hydroquinone. Waxay ku soo baxdaa noocyo badan. Waxay ku soo baxdaa boomate, waxay ku soo bixi kartaa kaniiniyo, sidoo kale waxay ku soo bixi kartaa sharoobo. Marka mar walba waxaa la isticmaalaa oo fiican nooca boomatada ah. Dawadan loo yaqaano hydroquinone waxay ku imaan kartaa laba nooc. Nooc 2% ah iyo nooc 4% ah. Sidoo kale dawadan loo yaqaano hydroquinone waxay ka mid tahay dawooyinka la isticmaali karo ayadoo ku soo qorin wax dhakhtar ah. Oo waxay ka mid tahay dawooyinka loo yaqaano without prescription drugs. Haddaba dawadan loo yaqaano hydroquinone qaabka u shaqeyso ayaa ah waxay inhibition ku sameynaysaa ama waxay joojinaysaa in la soo saaro maadada loo yaqaano melaninta. Maadada melaninta waa maadada go'aamiso midabka maqaarkeena. Oo tusaale ahaan qofka inuu noqdo qof cadaan ah iyo inuu noqdo qof madow ah waa maadada go'aamiso. Marka haddii maadadan ay ku badato maqaarka, waxay sameyn kartaa ama waxay kugu keeni kartaa haaraha. Marka dawadani waxay sameynaysaa inhibition ama waxay joojinaysaa in maadadaas in badan laga soo saaro. Sidoo kale waxaad ku daweey kartaa inaad isticmaashid kareemka loo yaqaano aloe vera oo ah kareem ka samaysan maadada dacarta. Kareemka waxaad isticmaali kartaa 3 mar maalintii. Dawadan waxaad isticmaali kartaa 3 jeer maalintii, subaxii iyo galabtii iyo habeenkiiba. Ugu dambeyn, waxaan rajaynayaa haddii aad isticmaashay waxyaabaha hadda soo sheegay inaad isbedel degdeg ah dareemi doontid. Balse haddii aad intaas isbedel ku dareemi waysid, waxaan kugula talin lahaa inaad u tagtid dhakhtar ku takhasusay cudurrada maqaarka ama wax loo yaqaano dermatologist. Anigoo kaaga mahadcelinayo daawashada muuqaalkan, waxaan rajaynayaa in muuqaalkan wax un ka faa'iiday. Sidoo kale waxaan ka codsanayaa in muuqaalka like noo saarto, channelkan ku soo biirto oo subscribe noo saarto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.